dhalinyaradu inta badan dumarka ay midani ku dhacdaa oo ayagoo yar baa iska bijibinayaan qof bilaadanka dareemta shukaansan mise goosha ka qabrankaas maxaa shukaansiga halashaan guurmiya mise waa waqti qaadasho waxayna ka waramaynaa shukaansiga iyo xilligan la joogo qeybihiisa kala duwan iyo caqabadooyinka ka dhashay. aniga ahaan shukaansigu waxaa oran karaa waa bilood cusub oo dhalinyarada intooda badan ay joogteeyeen ay la qabsadeen. waa dhifinaada inaad aragto qof dhalinyaro oo haddana waxna shukaansanin ama hasaawo tegin. ugu yaraan qofkiiba maalintii wuxuu la hadlaa hal qof ama laba qof. halka qof iyo labada qofna waxay noqonaysaa qaabyo kala duwan oo kula hadlaa, ama asagoo doonaya qofkan inuu dana gooni ka gaaro, ama asagoo doonaya qofkan soo jiiday isle. hadba waxay noqonaysaa marxaladooyinka iyo xaaladda xilliga uu ku sugan yahay. sidoo kale tan caqabada kale oo jirta waxay tahay dhalinyaradu inta badan dumarka ay midani ku dhacdaa oo haddii qofka dumartu aysan arkin in la daniinaynin ama uusan qof dhalinyaro la soo xiriiraynin, waxooga waxay dareemaysaa depression oo yani qof dumar caadi ah ma tihid, ama qof yani soo jiidashada ma tihid. wax badan ay kaa khaldan. inta badan raggan waxyaalaha xiiseeyaan waxaa ka mid ah yani dumarku waa inay meelo ka arkaan ama aqoon hoose u leeyihiin kadib soo xiiseynayaan. marka halkaas waxaa ku lumay gabdhihii asturnaa oo guriga ku asturnaa oo wanaagsanaa, wax soo raadiyay ma lahan, ama wax garasho ama aqoon u leh ma lahan. taas marka dumarkii ama gabdhihii waxay noqdeen kuwo guriga dhexdiisa stress iyo depression ku dhacay. halka raggana intooda badan maalintii ay noqonayso in dhowr dumar oo kala duwan la hadlaan. hadduusan qof la hadli waayana ay noqonayso maalintiisa inaysan wanaagsanayn, uu dareemayo wax ka maqan. marxaban. marka waxaa kusoo tilmaantay inuu yahay balwad waaye. balwaduna waxaa ula jeedaa like qofku wuxuu la qabsaday, uu xiiseeyo, uu daneeyo, waqti uu geliyo, enerjigiisana uu geliyo. tusaale kale dhalinyaradu waxna way u baahan tahay, waxnana way rabtaa. inta badan anagu maxaan enerjigeena iyo waqtigeena iyo juhdigeena iyo dadaalkeena gelinaa waxaan anaga aan rabno, halka enerjigeena uusan aan gelinin waxaan u baahannahay. tusaale kale anaga waxaan rabnaa hasaawo tagnaa, qof aan la sheekaysanaa rabnaa, qof aan la hasaawo tagnaa rabnaa, qof aan xiriir la yeelanaa rabnaa, qof aan waqti la qaadanaa rabnaa. laakiin waxaas waxaad u baahan tahay waxaad rabto ma ahan. like waxna waa rabto, waxna waa u baahan tahay. idan marka waxaad u baahan tahay waxaa kamid ah in adiga wax barato, waqtigaada aad ka faa'iidaysato, inaad caafimaadkaada ku dadaasho, inaad mataqaantaa ehelkaada waqti la qaadato, la sheekaysato, inaad adig ahaan maskax ahaan isku kobciso. yani qofku wuxuu waqti gelinayaa, energy gelinayaa wuxuusan u baahnayn. tusaale kale shukaansigu iyo hasaabaha, inuu maantana magac raadiyo, inuu lacag yani ka daba cararo. taasina marka hadduu qofku uu ku dadaalo wuxuu asaga u baahan yahay, aqoontiisa uu kobciyo, sumcadiisii ehelkiisana la xiriiro, asaga ahaanna maskax ahaan iskobciyo, wuxuu noqonayaa qof intaas dhan wada helo. qof ku haboon wuu helayaa, lacag wuu helayaa, sumcadii magacna wuu helayaa, lanna waa qof aqoon leh. okay sidoo kalena haddii aad wax ku dadaasho horta waad gaaraysaa. waxaan ka wadaa haddii aad rabto nolol fiican ama reer fiican ama gabadh fiican aad guursato, soo iyadana ma inaad meel kasoo bilowdo oo soo shukaansato oo lasoo haasawdo oo waqti lasoo qaadato gabdhihii si aad u fahanto, dumarkii in general aad u fahanto. soo iyadana waayo ani waxaan aaminsan inuu guurkan ama shukaansigan inuu qayb nolosha kamid uu yahay, oo loo baahan yahay wiilka inuu wax shukaansado, gabadha inuu wax shukaansato. dabcan shukaansiga saxda ah kan waayahan jira ma ahaan. shukaansigan waxaan aaminsan hadduun ahayn wax xadgudub oo aad samaynaysa inuu okay iska yahay. marka waa qayb nolosha kamid ah, sidii waxbarashadii, caafimaadkii, shaqadii. qof bilaadanka waxaan aaminsanay inuu daruuri tahay isagana inuu lahaado. ilaahay buu naka dhimatay lab iyo dhadig, marka soo jiidasho ayaa naga dhexeeya. marka waa qayb nolosha iyadoo kamid ah shukaansigu. waxaa loo baahan yahay shukaansiga maxaa khaldan hadda waqtiga la joogo, maxaase sax ka ah. marka taas ayaan dhihi lahaa anigu waan inay diiradda saaraan loo baahan yahay maanta. horta wax badan aa khaldan qaabka loo shukaansanayo. halka maanta ay fududahay in qofku cusub inuu barto qof cusub, inuu la hasaabo qof cusub. yani maalin walba qofku wuxuu suuro gelin karaa inuu qof cusub barto. yani internetkii
iyo baraha bulshada ayaa fududeeyay qofka inuu qof cusub barto halka inteena badan uma aragno fursad qofkan aad baranayso oo yani qofku dhabta u yahay inaad ku barato kaliya waxa ku cad barashada aad baranayso iyo qofku wuxuu yani danaha markaas aad qof ka faa'iideyso aad ku cad hadduu tusaale kale qofku u yahay qof magac leh ama qof dhaqaale leh ama qof qurxan hadduu yahay quruxdiisa iyo magaciisa iyo dhaqaalihiisa ku muuqanayo halka aad iska indhatirayso waxa kale oo qofka quseeyo shakhsiyadiisa iska indhatirayso dabeecadiisa iska indhatirayso laana baraha bulshadu waxay xadiday qofka inaa shakhsiyad inaa dabeecadiisa dhaqankiisa aad barato laana qofka qof aad la nooshahay ma ahan had dhanka kaleetana waa qof aad si maalinla aad la xiriiri karto si maalinla aad yani waad xiriiri kartaan waa sheekaysan kartaan laakiin waxyaala badan kaa qariyay oo qofka shakhsiyadiisa ma garan kartid inta badan markii la hasaabo tagayo qof run sheega waa yartaha qof walba wax buu qariyaa wuxuuna sheegaa wuxuu ku wanaagsan yahay waa sax qof inuu wuxuu ku wanaagsan yahay marka hore uu sheega wixii kaleetana gadaal baa laga ogaanaya laakiin caqabada jirtaa waxay tahay waxaas ninkii la ogaado labada qof ma sii wada joogayaan waxaa kaloo caqabada ugu weyn jirta waxaa waaye shukaansi waqti waqtigu ku habboon yahay waaye haddii aad u shukaansanayso waan qaan gaaro girlfriend baan u baahanahay boyfriend u baahanahay daruuri ma ahan laakiin hadduu shukaansigu yahay waxaan rabaa mustaqbal guur ayaan rabaa waxaa macquula inaad inay jirto qof genuinely daacad ah wiil ama gabadh u raba guur calaf raadinaya laakiin marxaladda hadda jirta ay u adkayso saa awgeed u arkaysaa gabdho badan oo wax barteen diinta yaqaanaan akhyaar ah haddana ka cabsanaan guurkii ama sidoo kale wiilal genuinely daacad u rabaan guur u rabaan oo waxa shukaansaan oo isfahmaan rabaan laakiin marxaladda jirta inaydan ciyaari gelinayso marka shukaansigiiba marka wuxuu noqday garoon lagu ciyaaro camal waxaad arkaysaa dhalinyaradii da'yar oo isagoo waxbarashadii ku jira guur diyaar u ahayn aan u soconin ayaa waxay noqotay processkii nolosha ayaa noqday in uu qofku uu raadiyo lamaane xataa isagoo og inuuna guursaynin gabadha isagoo og inuu wiilka iscalmanaynin calaf way siisaa laakiin isagoo og inuuna 10 sano soo socda guur diyaar ahayn aaladaha social media oo kale yani fududeeyo dhalinyarada isbarato ayagoo yar baa iska bijibinayaan qof bini'aadamka dareen ku dhashaa xiisi iyo jecel baa ku dhalanaya iyadoo yar ama wiilka isagoo yar midna guur diyaar ahayn waxaa dhacaya markaa reality imanas wixii u socon waaya ama barshi kala aadayaan ama meesha kala tegayaan ama way isxumaynayaan mid baa mid kale ka jeclaanaya wixii infatuation waa inta badan wax jecel asal ma ahan infatuationkaas marka waxaa dhacaysa in gabadha qalbi jabto ama wiilku qalbi jabo markay gaarto waqtiga saxda ahayd ama guur uu rabay guur uu rabtay wax ku maqan qalbi jab iyadoo yar soo gaaray marka cabsiyo badan baa laga keento oo ay dhahdo ragga dhan waa hebel oo kale ama gabdho dhan waa hebel oo kale taasna waa caqabad asli wax jira waa inta badan qofku markuu xasaabo tagayo ama qofku shukaansanayo marka hore waxay ka bilaabanaysaa barasho isbaranayaan laga yaabo qofku inay waxoogaa isdabeecad fahmeen is soo jiiteen in muddo wada qaadanayaan ay wada xiriirayaan wada kaftamayaan marka halkaas waxaa ka dhalanaya dareen isu soo jiidasho laba qof isu soo jiidanayaan kadib laga yaabo mid kamid ah inuu dareen cashaq ku dhaco uu qof kale u qaado halkan qof kale tan uusan garanin ama uusan ogeyn idan tusaale kale qofka markuu jacayl ku dhaco maskaxdiisu waxay noqotay busy qaybna waa qayb mashquulsan oo ku mashquulsan tahay dareenkaasi cishqigaasi qofkaas uu qaado taas marka waxay macno noqonaysaa qofku waa qof mashquulsan ka mashquulsan wixii asaga muhiimka u ahaa ku mashquulsan wax kale uusan xilligan yani aqbali karin ama caqabada ka dhalan karto uusan qaadani karin tusaale kale qofku uu aashaqay hadduu ka tago berito waxay noqonaysaa qofkan inuu haddana soo recover geleeyo uu hasaabo tago ama qof kala jeclaado waqtigay qaadanaysaa sidii hore shukaansiga hadda horta first what's the difference shukaansigii hore iyo shukaansigan right midda kalena maxaa waaye markii la dhaho shukaansi niyadda koowaad maxaa waaye sababtoo shukaansana mise goosha ka qabrankaas maxaa shukaansiga halashaan guur miya mise waa waqti qaadasho miya mise madadaalo miya mise barasho waaye qofkan inaad fahamtid miya mise because maxaa arkaysaa sida ka qaadayso biyaan qofkii dhaqaalena ma hayo waqtina ma hayo markaas balse actively you know the person is dating actively markastaba shukaansi tan kadib taas kadib marka qofkaas camal mowqifkiisa maxaa waaye right hadda maxaa ka hadashay horta qofka inuu shukaansiga qaybta koowaad inay tahay waxbarasho maana barasho isbarasho kadib qofkii you know stage after stage yeah
ina hor is socotiin kadib markaas guuri wixii laga hadli lahaa balse qofka marka koowaad ba haduunan diyaar guur u ahayn oo mar kastana shukaansiga ku jiro anakana oo badan marka dhalinyarnahnay daas marka maxaa laga dhahaa because way dhacdaa waa ku wada jirnaa dadka badan ay ku wada jiraan oo shukaansiga maanta intaas qof oo shukaansi ku jirto boqolkiiba maybe okay konton oo kala bixi dadka markaas kuwa guurka raba oo calaf doonka ah iyo kuwa markaas oo og waha because from 4 ku jirta mise jaamacada markaas bilaabaysa ogtahay waqtina ku dhiman oo aadan ka bixi karin shukaansigan badan iyo balantan iyo wax dhan kale oo finoosid but wali waa si subinaysa halna maaha at least qof kasta boo 2 3 4 waa kala wada adigna waa kala wada saas oo kale okay aniga waxaan dhihi lahaa horta waa run waa wax la soo wada sameeyey sababtoo hadda inta meesha fadhida nina wax soo shaqaysay ma lahaan ma jiraan laga laakiin wad waxaan aaminsanahay nin dhalinyaro ah oo qaan gaara ama gabadh dhalinyaro qaan wax shaqaysay ma lahaan sabab haddii ay jirtana waa naadir bayar sababta maxaa waaye waa processka bini'aadanimada waxaa la geeli laba jirtooda mar waa process aan marno waa lama huraan laga maarmaan waaye waa inaan qasab martaa ilaa wax yar ma ahaan but hadda ka dhex galo you see it's more of a process like ma ahan wax markaas oo ma aha it's more horta aan soo maro shukaansi kadib markaas wax kale si raadiyo ma ahan sidii hore like shukaansiga qof markuu guur gaaro uu isku soo diyaariyo ma hadda it's more of a rite of passage soo shukaansi sida like jaamacada waqti ama iskuulada soo like shukaansi waa soo maray camal ani shakhsiyan wax taageersan wax badan shukaansi reason Allah ma garan waxa waaye dumarka way naga duwan yihiin ragga kale ma ahan different dimensions of kala yaa disneyftaa sababtoo ah waxaa arkaa dumarkii faham bay u baahan yihiin faham bino shakhsiyan maan ka hadlaya waxay fikirkayga ha ma sha Allah anigu waxaas leeyahay fiican tahay ninka ragga ah inuu gabadha badan shukaansaday not hal mar necessarily ma hal mar inuu wada shukaansaday gabadha badan laakiin inuu soo marmaro soo shukaansaday shukaansiga saxda ah aniga kan qaabka marka shukaansiga saxda intii waay shukaansiga saxda ah wixii aan xadgudub ahayn gabadha waa shukaansanaysaa haddii aad xumaan samaynaysaa ama ku heshiisaan ama samaynaysaa anikaas uma shukaansi okay adiga ahaan baabkaaga ka shukaansi kuma aha jacaylka marka labaa loo kala qaadaa midna waa mid qofka maanka ka gala la yidhahdaa maanka midna waa mid qofka qalbiga ka gala oo aan ula jeedo qofka markuu dareen cishka uu ku qaado labadaas may noqonaysaa midda qalbigu waxay tahay qofkan yani waa iska jeclaatay oo dana gooni ku jeclaatay oo waxa ku jeclaatay quruxdiisa waxaad ku jeclaatay magaciisa dhaqaalihiisa iyo waxa adiga ka faa'iideyso aad ku jeclaatay halka maanka markuu u yahana qofkan si shakhsiyan u jeclaatay marka labadan qof haddii mid laga tago ama qofka uu jeclaa qofkan uu waayo labadaba midkay saameyn ku yeelanaysaa shakhsi ahaan haddii la yidhahdo qofka qalbiga wax ka jeclaaday laanna wuxuu qofkan ku jeclaaday ayuu weeyey quruxu ku jeclaaday quruxda ayuu waayey baasaboor ku jeclaaday baasaboorku uu waayey wuxuu ku jeclaaday lacagtii buu waayey which means stress baa ku yar dhacayo maanka qofka markaa maanka ka jeclaato like maankaaga uu soo galo qofka shakhsiyad ku dooratay shakhsiyadiisa berita kamaal daaweysan waxaad aaminsan tahay qof kale oo qofkaas ka wanaagsan ama qofka lamida inaad helayso halka inta badan xiriirka maanta ama hasaabuhu ama jacaylku uu yahay dana gooniya oo naqanayso qof inaad qalbi ahaan u jeclaato haddii aad waxaa heshana laga yaabaa hadda tusaalo kale laba qof ay isjeclaaday way hasaba tageen way ishukaansadeen waqtiga wada qaateen at the end of the day way isguursadeen idan mid laga yaabaa qofkani inuu qalbi ahaan u jeclaaday ama dana gooni uu ku jeclaaday dantaasi markuu uu helo yani wixii uu helo mogtahay xasaabihi marka ama dareenkii ama cishqiga uu yaraanaya haddii qofka baasboor ku jeclaatay markaa marayxiga wada tagtaan jaceylkii yani cishqigii sidii ma sii ahaanayo haddaad lacag ku jeclaatay markay gurigiisa tagto lacagta ah hesho sida ma noqonayo marka qofkii waa isbedelaysaa haddaad qurux ku jeclaatay qofka markuu dhowr cunug kuu dhalo ama isku dhashaan waxay noqonaysaa inaad haddana wixii u sii jirin laakiin maanka qof ma ku jeclaato marxalad walba ay noqoto ama xaalad walba qof ku sugan yahay hadduu kaa tago waa khayr hadduu kula joogana waa khayr